biyacaddo waa deegaan hoostaga degmada Ayl ee gobolka Nugaal waxayna ka mid tahay inta uu ka hirgalay mashruuca ka soo kabashada abaarta ee sida restore waxa anaga fadhiyay oo aan dhibaato badan u qabnay ceelkii ay ka cabi jirtay magaalada isagoo daad soo rugmaday 4 sano ka hor uu naga kharibay maxaan ku dhahaa shaqadoon ka horna wax si bareera ah oo toos ah uga qabtay ayna jirin cid noo timaado habdan rajo geliso naga tagta ma ogiye xilli bulshada deegaanku in muddo la daala dhacaysay duruufaha haraadku ugu daran yahay ayuu soo gaaray sahanka barnaamijkan wax loogu qabanayo shaqadan maxaan ku dhahaayay way noo imaatay waxa ay nagu boorisay ama maxaan ku dhahaayay nagu dhalisay ama nagu tababartay in aan waxaan heli karno bixisano inta badanna ay kharashka noo qabto iyadoo naga bixiso tababar bay noo qabatay 5 guddiye ba qaaday tababarkaas u soo qabatay dhaqaalaha ceelkan lagu kiciyay waxa qayb ka ah mid bulshada deegaanku dhexdooda iska ururiyeen iyadoo sidoo kale deegaankan laga dhisay guddiga horumarinta iyo dhaqaale ururinta mashruucan lana siiyay tababaro la xiriira sidii loo fulin lahaa mashruucaasi si daahfuran community-gu waxaan siinay ka shaqadoon ahaan wacyigelin la xiriirta sidii maadaama aysan awal qayb uga ahayn mashaariicda noocaana sida loo maamulo mashaariicda bulshada ama dhaqaale ururin loo sameeyo wax loo yaqaan fundraising-ka sida maaragtay procurement-ga ama maaragtay qandaraaska loo bixiyo loo xayeysiiyo shirkadaha qandaraaska soo codsaday loo kala saaro markii la gaaray xilligii dhaqaale ururinta ayaa madasha mashaariicda bulshada ee bulshakaab oo ay maamusho hay'adda shaqadoon lagu xiray akoonkii bulshada looga furay bangiga si loogala socdo dhaqdhaqaaqa akoonkaasi ee bulshaduna ula socoto wax kasta oo akoonka ku soo dhacaya hay'addu akoon bay noo samaysay akoonkii bay lacagtii ku shubtay taayadii baan diyaarsanay taayadii baan akoonka ku shubnay qaybna qalabkii iyo sida cable-ka kale iyo baan soo gadanay oo meesha la nimi sidaasaan ku fulinay kolkii dhaqaalihii la ururiyay oo hawlihii kala soo dhamaadeen ayaa la gaaray fulintii mashruuca dhalinyaraan ceelki gelinay waa jabinay ceelku waa xabaalaam ciid afkay joogtay ciid waan saarnay ceelkii waxba laga qabtay biyaha laga cabay aad iyo aad baana loogu barwaaqoobay talaabadan wax wada qabsi ka sokow in lagu liibaanay oo xilligan bulshada deegaanka biyacaddo ay heleen biyo lagu haraad beelay dhanka kale waxa ay abuurtay duruus wax laga barto shaqadan ceelku waa tii noogu horeysay oo aanu ka qayb qaadano oo nala ku tababaro oo nala ku booriyo inaanu ka qayb qaadano ceelka maxaan ku iraahdaa isgarab taagno wixii naloo qabanayo annagana waxayna bartay 10 fiican oo ah inaanu isku tashano dadku jeebkooda wax ka urursan karaan wax qabsan karaan maadaama awal ay ahaayeen dadka tuulowda gacmaha iska laabtay hay'addu u timaado wax uga jeeda kaliya hadda waxaan baranay dadku inay isku tashadaan oo jeebkooda waxay ka heli karaan ka urursadaan deegaanka biyacaddo ee gobolka Nugaal wali waxa ka jira baahiyo bulsho oo u baahan in wax laga qabto dadka deegaankuna waxa ay noo sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan oo qaybtooda bixiyaan waxa caqabadaha hadda jira imsaadku waa nagu yar yahay qodobka qaybta caafimaadka waa 2 qol dayactir waa u baahan yahay qalabayn waa u baahan yahay ilaahay baa ku iskoolku dayr nooma leh oo dayr baan rabnay ciyaalkii laga xafido baahiyo badan baa wadooyinka waa xun yihiin waa halaysan yihiin tulada wadooyinkada waa aragteen waa soo madheen markii la dhiso ama la sameeyo daad baa ilaahay mahadi iska qaada ama waa iska ba kharimaaninba